halyeeyga madoow louis farakhan ee madaxa ka ururka muslimiinta maraykanka ee the nation of islam ayaa shirweynihii ururka ku taageeray hadalkii senator ilham cumar wuxuuna ku guubaabiyey inaysan cudurdaar ka bixin hadalkeedii ay ku sheegtay in AIPAC uu faraha kula jiro siyaasadaha maraykanka uuna taageeray israa'iil waxayna ilham u sheegay inaysan been sheegin oo ay tahay run qof walibana uu og yahay in AIPAC iyo maalqabeennada yuhuuddu ay laalushaan golaha senadka maraykanka marka ha ka cudurdaaran buu yidhi inaad zuuliso korrupshinka balila daawo hadalkii louis farakhan. Miss Omar from Somalia, she started talking about the Benjamins. And they trying to make her apologize. I said, sweetheart, don't do that. Oh, pardon me for calling you sweetheart, but you do have a sweetheart. Because you sure using it to shake the government up. But you have nothing to apologize for. Israel and AIPAC pays off senators and congressmen to do their bidding. So you're not lying. So if you're not lying, stop laying down. You were sent there by the people to shake up that corrupt house. Shake it up. My young Puerto Rican sister, shaking it up. Don't let him come to, oh, she's just young. She just got here. Don't be so hard on her. My beautiful sisters, you were sent there to shake that house up.